kubadda cagta waa mid kamid ah ilaha wax soo saarka adduunka iyadoona ay u sahashay dhowr ciyaaryahan oo noloshooda ay adkeed in ay noqdaan xidigo nolol degan oo qurux badan ku noolaada kadib markii ay ku soo biireen ciyaarista kubadda cagta. Ciyaaryahana qaarkood ayaa muujiyay in aadna u soo bandhigay in ay yihiin xidiga aad uga mahadcelinaya ciyaarista kubadda cagta in ay ahayd noloshoodii natiijada ugu wanaagsanayd ee ay gaaraan. haddaba waxaan ku soo qaadanaynaa sheekadani 5 ciyaaryahan oo ay noloshooda si gaar ah saameyn ugu yeelatay ciyaarista kubadda cagta ayna u bedeshay. inta aanan warbixintan xiisaha badan guda gelin haddii channelkeena Shavinho Tube uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo nagu soo biir riix gambaleelka digniinta si durbaba ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha leh ee aan bartan soo galino. sidoo kale ha hilmaamin inaad muuqaalka like saarto una share garay asxaabtaada aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. xidiga koowaad waa Saciid Maane waxa uu ku soo koray nolol aad u adag isagoona qiimeyn ahaan noloshiisu ay la ekeed heer uu iibsan waayay kabaha lagu ciyaaro kubadda cagta. waxa uu ku sugnaa wadankaasi Senegal aad waxa uu ugu riyoonayay ciyaarista kubadda cagta way adkeed in uu gaaro heerka uu rabo. qoyskiisa oo qoys muslim ah awgeedna cadaadis fara badan waxay ku saareen inay ka joojiyaan ciyaarista kubadda cagta balse ugu dambeyn xidiga waxa uu go'aansaday in uu ku biiro ciyaaristaada. waxa uu codsi u gudbistay ama uu lugihiisa ugu tagay meel ciyaaryahanada lagu kala saarayay. waxaan codsaday ama aan weydiistay inaan ku biiri karo halkaasi. macalinka ciyaarta waqtigaasi kala saaridda caruurta wada ayaa ii sheegay in aan imid in kala meel qaldan. maya waxaan imid halkii loogu talagalay ayaan ugu jawaabay. sidoo kale waxa uu ii weydiiyay ayuu yiri Saciid Maane oo ka hadlay noloshiisii hore sidii ay u adkeed oo maxaad u soo xiran weysay dhar ku haboon ciyaarista kubadda cagta. sidoo kale kabihii kubadda cagta ma wadatid. waxay ii ahayd ayuu yiri waqti hore oo aad u xanuun badan balse maanta waxaan dareemayaa ciyaarista kubadda cagta in ay bedeshay noloshayda oo idil. Saciid Maane ayaa kamid ah hadda xidigaha qaarada Yurub kuwooda ugu saameynta badan sidoo kalena hadda waxa uu kamid yahay xidigaha musharaadka qaaliga ah ka qaata kooxda kubadda cagta ee Liverpool. xidiga labaad ee qosayso sheekadani waa ciyaaryahanka lagu magacaabo Frank Ribery. Ribery ayaa ku soo koray nolol aad u adag isagoo dhaawacyo adag ee wajigiisa ay ka muuqdaan ay ku soo gaareen shan gaari uu galay ciyaaryahankaasi. xidigan ayaa noloshiisu aad u adkeyd marka loo eego caruurnimadiisa waxana uu ku soo koray marxalad adag isagoona aad u muujiyay waqtiyo kala duwan xaaladii uu ku soo noolaa. waxa uu noqday Frank Ribery mid kamid ah shumacyada kubadda cagta. dadaal dheer kadib waxa uu ku guuleystay inuu hantiyo qulubta dadka adduunka iyo sidoo kale taageerayaasha aadka u jecel ciyaarista kubadda cagta waana uu ka talaabay marxaladii adkeyd Frank Ribery. Alexis Sanchez waa xidiga saddexaad ee quseynaysa sheekadani. Alexis Sanchez waxa uu ahaa mid kamid ah xidigaha xaaladoodu ay adkeyd. waxa uu ku soo koray qoys faqiir ah wadankiisa Colombia. magaalada uu ka degnaa waxa uu ka awoodi waayay kooxdiisa inuu si hagaagsan ugu biiro waxaana uu kamid ahaa xidigaha yaraanimadooda waalidkood aad u shaqooyinkii uu qabto waxaa kamid ahayd nadiifinta gawaarida oo uu dhaqaale yar ka qaadanayay xidiga si uu uga caawiyo qoyskiisa. waxa uu noqday mid kamid ah xidigaha ugu saameynta badan qaarada Yurub. waxay dhigtay kubadda cagta noloshayda wax badanna waan kaga hayaa abaal ayuu si raaciyay ciyaaryahanka hadalkiisa. kadib ku biritaankiisii kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa uu kamid noqday xidigaha ugu mushaaraadka badan horyaalka wadankaasi Ingiriiska iyo sidoo kale qaarada Yurub. haddase Alexis Sanchez waxa uu kamid yahay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. xidiga afraad waa Zlatan Ibrahimovic. mar walba waa mid kamid ah xidigaha la soo hadal qaado sheekooyinkooda guusha. marar badan waxa uu muujiyaa in shakhsiyadda qofka isaga uu dhisan karo guulna uu gaari karo. Sweden magaalada Malmö iyo ciyaaryahankan ku soo barbaaray balse waxa uu muujiyay xaaladiisa inay ahayd mid aad u adag. marar badan waxa uu ka sheekeeyay Zlatan Ibrahimovic in qoyskiisa isagaba ay ku noolaadeen xaalad aad u adag. asal ahaan xidigani ma ahan wadanka Swedishka waxa uu ka yimid wadamada qaarada Yurub kuwada dagaalada ka socon jiray. waxaana uu ciyaaryahankani uu sameeyay dadaal fara badan isagoo isku dayay in uu guulo waaweyn nafsadiisa u horseedo. waxa uu isku tilmaamaa hadda inuu yahay xidiga ugu qaalisan kubadda cagta shakhsiyadda ugu horeysay sidoo kale mid kamid ah xidigaha ku guuleystay hamigooda nololeed inay horumariyaan. Angel Di Maria ayaa ah xidiga shanaad oo ay sheekadani taabanayso. Di Maria waxa uu kamid ahaa xidigihii caruurnimadooda noloshoodu ay aad u adkeed. waxaan ku nooleen aniga iyo qoyskayga nolol adag. waalidiinteedu waxay ka shaqayn jireen dhuxusha. sidoo kale waxaan ahaa anigu mid ku caawiyo la shaqaynta waalidkayga. kubadda cagta waxay ii tahay wax walba
dadka markaad yartaha waxa ay ku weydiinayaan maxay ku qabanaysaa in aad mar walba ciyaarto. dhib iima ahayn ayuu yiri in aan ka mid ahaado waqtigayga oo idil ciyaarista kubadda cagta. aabahay iyo hooyaday waxay ahaayeen kuwo aad ugu shaqeeya dhuxusha, waxaan ahaa waqtiyada aan fursada leeyahay kuwo aan la shaqayn jiray. sidoo kale walaashay qayb ayay ka ahayd dadka kala shaqeynaya aaba iyo hooyo iibinta dhuxusha. da ahaan aad ayaan u yaraa, waxaan dareemayay inaanu haysanin wiil walbo da'yar wuxuu u baahan yahay. saasi ay tahay waxaan ku dadaali jiray in aan ka gaaro kubadda cagta heer. xidigan ayaa qaaradda Yurub u soo ambabaxay 16 jirkiisii shumac ayuu noqday ciyaaryahanka isagoona aad looga eeganayay. waxa uu yimid wadanka Boortaqiiska si uu hamigiisa nololeed ugu rumeeyo. waxaa iibsatay Real Madrid, sidoo kale waxaa iibsatay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. hadda waxa uu ka tirsan yahay kooxda Paris Saint-Germain, waxaana uu sheegay in kubadda cagta ay tahay badbaadiyaha noloshiisa.